بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله walaalayaal kusoo dhawaada janalkayga Aamina Shiiquna anigana waa Aamina Shiiquna haddii aad hore noola joogtay waan kaaga mahadcelinayaa la joogitaankaaga fadlan barnaamijka like noo saar haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo bir ka mid noqo asxaabteena maanta waxaan idin wadaa video yar oo dhiirigelin ah kaasoo ah dah aniga gurigayga ku samaystay run ahaantii aad iyo aad u qurux badan yahay waadna arki doontiin inkastoo meesha oo daaqada iyo meeshaan ka duubay meel ciriirta si fiican loo arkayn laakiin waad ka arki kartiin daha quruxdiisa uma baahnid inaad 500 kusoo gadid ama 200 kusoo gadid daah bil kadibna aad tuurtid daah maaragtay aan dooqaaga mararka qaar waxaa laga yaabaa daah aadan jeclaysan inaad soo gadid waayo waa u baahan tahay haddana kadib oo aad tuurtid marka waxaad uga bogsoonaysaa si yaroo fudud aniga daahan qiimo aad iyo aad u jaban aan kusoo gaday gurigaygaana ku samaystay mana ihi aniga qof yacni dhartolowga khatar ku ahaa yacni ma aha qasab inaad khatar ku taho ama iskool laga soo baxday qasab ma aha gurigaan ku bartay waan isqasqasbay alxamdulilah waan ku guuleystay waa kaasaa kuma khasaarin wax kasta waxay u baahan yihiin geesinimo isku day iyo waxay u baahan yihiin sabar inshaa allah marka waxaan idin tusayaa si yaroo kooban qaabkii aan u tolay iyo siduu kusoo baxay markii aan dhameeyey daawasho wacan waxaan rajeynaya inaad ka heli doontaan kadib biimanka waxay kaa caawinayaan biimanka aad iyo aad waxay kaaga caawinayaan hadhow yani markaa gelgelinaysa horta waqti waa kaa qaadanaya laakiin biimanka halkaan iyoga jiraan dhaladan sus maho bismi illaahi calaa barakati illaah hadhow wallaahi alcadiim maasha allah saan imari waay marka harqaanka imari le bes celcelis iyo wax kala cararaaya iyo aniga kow markaan bilaawaya dhartalowga nafta ay qaban jirta dharka dhan iga kala cararaa gabadheed yarta halkaas gaari ku jirtaan fiirsanooya mar walbiya hadda alla xagga fiiriya ila yaabin wuu iga kala carari jiray dharkii silac iyo saxariir waxay igu qaadan jirtay 24 saac waxaa laga yaabaa in hal saac ka talo laga yaabi lahaa ilaahay amarkiis alxamdulilah iskoolan marka dambe tagay iskoolkii markaan tagay iskoolkii baan horta wax badan ma dhiganin waa xanuunsaday nasiib daro aniga tashto aniga aad ugu qanacsanay aad iyo aad kan waa laaba dahayo kana kiisa kalena hadda la tolay isdhex gashana waxaa waaye silfar iyo waxaa waaye gaduud oo beer waaye bismillaah doonta iyo waxaa laga jarjaraa hadduu feero u baahan yahay waa la feeraynaa
كست دع كسوتور دهاي waxaa ka jeclahay male waxa ani gacanteyda ku tashtay xataa ayagoo foolxumo yihiin aan jeclay beenku ma sheegaani ilaahay amarkiis ma aqaanba dharka aniga tashto aad ugu qanacsan aad iyo aad halkii markaan tagay muddo 3 bilood leeba dhiganay aniga naftirkeyga waxa la noo dhigay bes macluumaad dharka markii la tolay meesha laga bilaabay dharka waxa laga bilaabaa feero iyo in aad biiman ku qabato dad biiman u baahan yahay dharka qaarkiisana feero bis u baahan yahay dadkan kale ma feeran kartid sabab waxa waaye بسم الله دهمنكي وعلى طريق وكوانا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن الحمد لله سيداني كسوف دهمنكي waxaan u talay wax yar oo ani fikradeyda leeh waan kala dheereeyay jaranjaro camalaan ka dhigay tusaale ahaan hadda taas safarkii dhigidkoo kala dheerahay soo jaray oo talay waa kuwanaa sidaas u birqayaa marka habeenka oo khas laba rag ka birqo korna waa kasaas ugu tulan yahay sawiradan aan u jeedin anigaa sameeyey oo meelaha duulduulaya marmale kasoo bixi doona kan iyo midkan silfarka horta kan waxaa ugu talagalay asagaan mar hore sameeyey midkan oo gaduudka iyo isugu jiro silfarka dahmankana kadib aan soo dooqay oon ku sameeyey waxaa jiro sawir kalaa jiro iyo kuwo kaloo badan aan sameeyey insha allah aan kusoo qaadan doona muuqaaladeeda xiga biidni illaahi ilbaari marka aad isugu soo baxeen maasha allah tabaaraka allah المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى
فردين كسر ديبتا جمالا جاب لي ودح قلي كان عد هدوك قرح بدني هاي لأجاريهم قلدت وإيش ظاهر ما هيك؟ فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر